saaxiibayaal tani waa hooyada Crystal Creek oo 43 sano jir ah daqiiqado gudahood waxay heli doontaa jirka Crystal oo aan waxba ka nooleyn oo ku jirta garaashka gurigooda. kanina waa Daniel Creek ninka dilay daqiiqada kadib waxa uu u socdaa shaqadiisa caadiga ah isagoo weli qarinaya jirka xaaskiisa. Oh shit. Holy fuck. muddadii 4 bilood ee la soo dhaafay ninkan waxa uu qorsheeyay dil aad u xeeladaysan oo ah kii ugu xumaa ee lagu arko Colorado. waxa uu abuuray aqoonsiyo been abuur ah sidoo kale waxa uu maamulay maskaxda Crystal wuxuu diyaariyay qof lagu eedeeyo si uu isagu ugu baxsado dembiga. wuxuu aaminsan yahay in qorshihiisu yahay mid aan la jibin karin in boolisku ay toddobaadyo ku qaadan doonto inay raadiyaan qof aan jirin ugu dambeyntiina ay qof kale u xiri doonaan dilka uu sameeyay. Husband said there was a dude who's been stalking her and threatened to kidnap her. Oh my god, this can't be true. I was the person who attacked her. Still, how's Henry? Yeah, nice to Very meet good to you. meet you. Talk to you. tani waa Crystal Creek bil ka hor dhimashadeedii waxay gurigan kula nooshahay 3 caruur ah iyo ninkeeda Daniel Creek. waxay ahaayeen dad wax bartay oo ku nolol wanaagsan laakiin dhanka kale waxaa jirtay nolol aad u madow oo aysan ka warqabin dadka kale oo burburin doonta qoyskan quruxda badan. inkastoo baaritaanka booliska uu ahaa mid dhow inuu guuleysto haddana qorshihiisu wuxuu u shaqeynayay sidii uu doonayay. ninkan waxa uu sheegay inuu jiro nin daba socda xaaskiisa oo u hanjabay tan iyo markii uu qorshuhu socday waxaa la sameeyay wax kasta oo ka baxsan aragtida dadka kale. booliska waxa ay kormeer ku sameeyeen gaariga Crystal si ay u hubiyaan inay ku jirto wax GPS ah ama wax kale oo sharci darro ah oo loo isticmaali karo daba socodka dadka. laakiin xaqiiqda ayaa ah in ninka daba socda Crystal uu yahay mid aad ugu agdhow. Like my street looks like this all the time. There's no one out. Like I know the normal cars. Yeah. So I don't know where he's following me from. I can only assume traffic. Nothing jumps out at me. I know, me either. I'm hoping it's just to mess with me. booliska waxa uu baaray gaariga oo dhan laakiin wax shaki ah kama helin ka hor inta uusan ka tagin. waxa uu Crystal siiyay talooyin ammaan iyo in uu sii wadi doono baaritaanka kiiskeeda. maalmo kadib boolisku waxa ay heleen ciwaan kale markana waxa guriga soo wacay Daniel ninka Crystal isagoo u sheegay in guriga la jibiyay. boolisku waxa ay u direen sargaal si uu soo hubiyo laakiin lama ogo in dhacdadani ay tahay bilowga mid ka mid ah dililka ugu xeeladaysan ee Mareykanka lagu arko. Hey, how's it going? Yeah, definitely. I'm Austin Shanti. I'm Dan. Nice to meet you. Johnson, nice to meet you. So, as I pulled in, I saw someone run out, jump over my gate, Okay. and take off that way. Got it. I didn't think to call you until my wife got home recently, and we realized the spare key that we keep in the garage isn't there. Okay. 9 maalmood kadib Crystal subax ay soo toostay waxa ay la soo toostay fariin ugu timid in ay garanaysay oo lagu magacaabo Jack Anthony wanin ay xiriir hore la lahaan jirtay. marka hore ma aysan u qaadan wax culeysa laakiin maalinta xigta wax walba way isbedeleen. Anthony hadda ma aha kaliya inuu daba socdo Crystal laakiin sidoo kale waxa uu ugu hanjabayaa qoyskeeda. Crystal waxa ay noqotay mid aad u taxaddar badan waxa ay ku rakibtay kaamirooyin gurigeeda. bishii Oktoobar Crystal aad ay u hurdo la'ayd waxay haysatay jadwal ay ku diiwaan gelisay fariimaha ninka daba socdo. bishii dambe email cusub oo ka yimid Anthony waxa uu xaqiijiyay cabsi weyn sawirro ku lifaaqan yahay ninkeeda Daniel oo shaqadiisa jooga. Crystal waxay ogaatay inaysan kaligeed maareyn karin xaaladda waxay shaqaaleysiisay baaraha qaaska ah si ay u raadiso Anthony. markii la gaaro Halloween-ka waxay wacday boolis waxay u sharaxaysaa dhammaan dhacdooyinka iyo cabsida ay la kulantay waxayna booliska u gudbisay kiisaska waaxda baaritaanka. So, how can I help you tonight? What's going on? Yeah, so I have an ex from a very long time ago who has occasionally found me on social media, and it's never been an issue. So this month. So this month,
I have received numerous text messages, and then today I got an email that is very threatening, and it escalated to the point that he took a recent picture of my husband at his work location. So the stalking is getting a little too aggressive at this point in time. Okay. So my last contact with this individual was 5 years ago, where I told him I was happily married. I had no interest in what he kept contacting me. He kind of blew things up and then blocked me. I blocked him and haven't heard from him since. baaritaano digital ah ayaa la bilaabay kuwaas oo lagula daba soconaya taleefanada, emailada iyo macluumaadka kale ee uu leeyahay ninka lagu magacaabo Anthony. halkaas ayuu baaraha ku ogaanaya arrin walwal badan oo ku saabsan guurka lamaanaha. baaruhu waxa uu weydiinaya Daniel goorta ay Crystal u sheegtay inuu jiro nin dabagalaya. marka ay Danielna waxa uu sheegay in ay ahayd 1 ama 2 November kadib markii ay Crystal ay heshay sawir isaga laga soo qaaday isagoo shaqada jooga. baaruhu waxa uu weydiiyay sababta ay Crystal ugu qaadatay ku dhawaad bil inay u sheegto arrintan. Danielna waxa uu qiray in isaga iyo xaaskiisa ay jireen waqtiyo adag oo ay mariyeen waqtigaasi guurkoodana uusan fiicnayn xilligaasi. sidaas daraadeedna arrinta uma muuqan mid degdeg ah ilaa xaaladdu sii xumaa. markii la weydiiyay in ay kala tagayaan ama furinkooda uu socdo, Daniel waxa uu sheegay arrintaasi weli inaysan go'aamanin. waxa uuna sidoo kale sheegay in walaalkiis uu askari boolis yahay isla markaana uu si ulbir ah oo difaac ah xitaa habeenkii uu agtiisa seexdo. waxa uu sheegay inuu dareemayo cabsi iyo mas'uuliyad darro isagoo uu arkay inuu xaaskiisa si fiican u ilaalinin. baaruhu waxa uu xaqiijiyay in gaariga Crystal la baaray lana hubiyay in uusan ku jirin wax GPS ah. taasna waxay ka dhigan tahay in haddii ninka daba socdo uu arkayo ama uu yahay mid aad ugu dhow sida shaqada ama guriga, arrintaana waxay abuuraysaa cabsi hor leh. markuu wareysigu dhamaado, baaraha Martinez waxa maskaxdiisa si gaar ah baaraha ugu haraysa in Daniel uusan waxba ka ogeyn daba socodka ku dhawaad bil. markii uu sii baaray xaaladda qoyska, waxa uu ogaaday in lamaanuhu ay ku jireen xaalad khilaaf. inkastoo uusan ahayn mid rabshado wata, waxay isku dayayeen in caruurta darteed ay isugu dulqaataan. hal daqiiqad baaraha waxa uu xitaa ka shakiyay in qof guriga ku jira uu xaaladda maamulayo, balse shakiga si degdeg ah ayuu baaba'ay maadaama uusan jirin wax caddayn ah. dhammaan tilmaamaha waxay u sii muuqdeen kuwa ku jihaysan Anthony. intii lagu jiray bishii November, fariimaha hanjabaadda way sii kordhayeen. Crystalna waxa ay sii waday diiwaangelinta dhammaan waxyaabaha dhacaya, waxayna si joogto ah ula socotay kaamiradaha guriga ku xiran. bilowgii December, Crystal waxay heshay fariin u muuqatay mid dejinaysa, taasoo u qorneed nabadgelyo qurxay mar daba kuuma imaan doono Colorado. saaxiibtayda cusub ma rabta inay kula hadasho, waxay ka baqaysaa inaad booliska ugu dirtid. markii ugu horeysay toddobaadyo badan kadib, Crystal iyo qoyskeeda waxay dareemeen nafis. waxay u maleynayeen in khatartii dhammaatay, laakiin xaqiiqda dhabta ayaa ahayd mid aad u murug badan. tanina waxay ahayd tallaabada ugu dambeysay ee ninkii dilka qorsheynayay. maalintii musiibada dhacday, wax walba waxay u bilaabeen si caadi ah. Daniel waxa uu baxay shaqada, Crystalna waxay caruurteeda geysay iskuulka. intii ay maqneed, qof ayaa yimid albaabka kore. waxa uu dimiyay kaamirada albaabka, waxa uuna si aamusnaan ah ku galay guriga. daqiiqado kadib, Crystal waxay guriga ku soo laabatay. gaariga ayayna gelisay garaashka, waxayna ka soo degtay gaariga. waxba maysan ku ogeyn qofka sugaya. isla markii ay albaabka guriga xirtay, ninkii ayaa weeraray. saacado kadib, Daniel waxa uu bilaabay inuu waco Crystal, balse kama jawaaban. fariimaha iyo wicitaanka midna ma aysan ku soo celin. markii uu u walwalay, waxa uu wacay booliska isagoo u sheegay in xaaskiisa loo hanjabay isla markaana uusan la xiriiri karin hadda. booliska ayaa isla markiiba soo diray gaari. isla waqtigaasi, Daniel waxa uu wacay hooyada Crystal isaga oo ka codsaday inay guriga aado. iyadu ma aysan ogeyn in ay u sii socoto daqiiqadii ugu xumeyd nolosheeda. askari boolis ayaa gaaray guriga marka hore. wax walba bannaanka waxay u muuqdeen kuwa caadi ah, laakiin dareen ayaa ku kallifay inuu fiiriyay garaashka. markii uu eegay, waxa uu arkay jir jiifa, dhiigna ka daadanaya derbiga. isla markiiba wicitaanka gargaarka ayuu u diray, wuxuuna bilaabay inuu gargaarka degdeg ah u sameeyo. albaabka garaashka markii la furay si gargaar loo helo, hooyada Crystal waxay si kooban u aragtay askari ku dadaalaya badbaadinta gabadheeda. waxaa la isku dayay in la dejiyo iyadoo loo sheegay in gargaar socdo, laakiin gudaha garaashka dhaqaatiirtu waxay ogaadeen dhaawac mindi ah oo ku dhacay laabta meel u dhow wadnaha. daqiiqad yar kadib, waxaa la xaqiijiyay in Crystal ay geeriyootay. gudaha boorsadeedana waxaa laga helay bustoolad ay sidatay, balse ma aysan helin fursad ay ku adeegsato. markii gaariga la baaray, wax weerar ah lagama helin.
laakiin boolisku waxay bilaabeen inay arkaan faahfaahin muujinaysa in dilkani uusan ahayn mid kedis ah balse uu yahay mid qoto dheer oo la soo qorsheeyey. tani waxay ahayd arrin aad u yaab badan. waxay u muuqatay in qofka dilka sameeyey uu si fudud ku soo galay guriga, malaha isagoo ogaa in albaabka uusan si buuxda u xirnayn. booliska si degdeg ah ayay u xaqiijiyeen in albaabka u furnaa kaasoo si fudud loo soo gali karin, sidoo kalena ay jirtay cajalad buluug ah oo si ulokac ah loogu dhijiyey kaamirada rinkiga ee albaabka hore. taasina waxay caddayn u ahayd in qofka falka sameeyey uu ahaa mid qorshaysan ama soo diyaariyey falkan. intii baaritaanku socday, xubnaha qoyska Crystal ayaa bilaabay inay yimaadaan mid. boolisku waxay go'aansadeen in warbixinta la wada siiyo qoyska hal mar, halkii qof loo siin lahaa ama qof loogu sheegi lahaa arrinta dhacday. markii aabbaha Crystal iyo walaalkeed ay goobta yimaadeen, culayska dhacdadu si dhab ah ayuu ugu degay qoyska. murugada ayaa hawada buuxisay, daqiiqad kastana way sii cuslaanaysay. qofka kaliya ee meesha ka maqana wuxuu ahaa Daniel, ninkeedii. ninka muddo toddobaadyo ah ka baqay inuusan awoodin inuu xaaskiisa ilaaliyo. hadda waxa uu ku soo socdaa si uu u ogaado in cabsidii ay run noqotay. intii ay sugayeen Daniel, baariyaashu waxay bilaabeen isku dabaridka tallaabooyinka xiga iyagoo raadinaya qofka falka geystay. laakiin waxaysan ogeyn ayaa ahaa in ninka ay raadinayaan uu weli aad ugu dhow yahay goobta, xitaa mid ka mid ah dadka meesha jooga uu yahay. markii Daniel uu dambeyntii goobta yimid, wadahadalkii baariyaasha ayaa istaagay. isla markiiba waxa uu muujiyey murugo daran, isagoo u muuqday nin gebi ahaanba burburay. maadaama uusan jirin wax shaki ah waqtigaasi, askartu waxay ula dhaqmayeen si naxariis leh, ayagoo u muujinaya inuu la joogo qoyskiisa. laakiin waxa aanay ogeyn in murugada uu muujinaya ay ahayd jilitaan. Or could have someone leave me over there? Daniel si fiican ayuu u ogaa wixii meesha ka dhacay. isagu waa dilihii. ilmo kasta, gariir kasta iyo neef kasta oo uu la soo baxay wuxuu ahaa qayb ka mid ah ruwaayadihii uu booliska iyo qoyska ku qanciyey. hooyada Crystal ayaa Daniel isku duubtay, isku dayaysay inay u qalbi qaboojiso, iyada oo aan marnaba ka shakinin in ninka ay isku duubayso uu yahay kii dilay gabadheeda. dhanka kale, boolisku waxay wajaheen howl kale oo aad u xanuun badan. baaraha mid ka mid ah ayaa loo diray iskuulka si uu u soo qaado carruurta Crystal, kuwaasi oo aan weli ogeyn inay hooyadood geeriyootay. markii uu gaaray gabadha curada ah, waxay horeyba u ahayd mid argagax leh. waxay daawanaysay kaamiradaha guriga si toos ah telefoonkeeda. waxay aragtay booliska, ambalaaska iyo sariir qof lagu qaadayo, waxayna awoodi weysay inay eegto qofka sariirta saaran. waxay ahayd xaalad murugo leh oo qoyska Crystal ku reebtay cabsi iyo jahwareer. markii gabadha Crystal ee ugu weyn ay timid xafiiska booliska, waxay sheegtay waxyaabo ka sii naxtin badan wixii hore. waxay sharaxday in ninka daba socda hooyadeed uu ku hanjabay inuu isku dayo in carruurta uu ku qanciyo in hooyadood ay khatar tahay, isaga oo Daniel u muujiyey inuu yahay qof dhibana ah oo u baahan ilaalin. tanina waxay muujinaysaa qofka daba socday Crystal inuu qorsheynayo inuu qoyska qaldo, isaga oo maraya marin qaldan si uu u xakameeyo arrinta carruurta iyo xitaa booliska. qof kasta oo guriga joogana wuxuu u muuqday mid ka mid ah jiliyaasha ciyaarta ninkaasi. Barry Martinez ayaa xogtani muhiimka ah ka diiwaan geliyey, wuxuuna la xiriiray Kate, xaaskii hore ee walaalka Crystal, si carruurta loogu qaado iskuulka si badbaado leh. isla waqtigaasi, baariyaashu waxay bilaabeen inay daraasadeeyaan goobta, lana hadlaan deriska oo ay aruuriyaan CCTV kasta oo la heli kara si loo ogaado dhaqdhaqaaqa dilaaga. markii ay booliska heleen cadeymo ku filan oo muujinaya Anthony, ex-boyfriendgii hore ee Crystal, inuu ku lug lahaa dhibaatooyinka bilaha socday, waxay qaateen amar qaran oo lagu soo qabanayo ninkaasi. waaxyaha kala duwan ee dalka ayaa soo diray digniintan, isla markaana iyada oo ay jirto dilka dhabta ah, baariyaashu waxa ay ku amri karaan adeeg bixiyaasha inay si degdeg ah u soo diraan xogta dijitaalka ahayd ee ay sugayeen. haddii Martinez uu heli lahaa feelasha toddobaadyo ka hor, xaaladdu si weyn ay ugu duwanaan lahayd sida ay maanta tahay. Daniel iyo qoyska intiisa kale ayaa loo qaaday xarunta booliska si wareysiyo rasmi ah loogu sameeyo. markii baariyaasha la fadhiisteen Daniel saacado kadib,
waraysiga caadiga ah ayaa bilaabay inuu yeesho jihooyin kala duwan. Baare Martinez ayaa weydiiyey su'aal ku saabsan nidaamka guriga. Daniel ayaa sharaxay in dhammaan kaamaradaha ay ku jiraan gacantooda isaga iyo xaaskiisa Crystal iyo weliba qof kale oo qoyska ka tirsan. laakiin Martinez ayaa arkay wax aan caadi ahayn. dhammaan kaamaradaha gurigu waxay istaageen 8:15 daqiiqo oo subaxnimo ilaa laga gaaro 10:15 daqiiqo, kuwaasoo hawada ka maqnaa 2 saacadood. marka laga reebo midka garaashka ka kor ku xiran, tanina waxay si cad u xadiday saacadaha dilka. markii Baare Martinez la fariisay Daniel wuxuu dareemay miisaanka murugada, laakiin waxba kama aysan bedelin shaki uu ka qabo Daniel. Danielna wuu ooyay balse indhihiisu oo ilmo ma ka imaadan. taasina waxay ahayd wax aan dabiici ahayn. Martinezna wuxuu ka shakiyay Daniel. baaruhu wuxuu daba socday inuu la joogo Daniel keligii si uu u ogaado waxa dhabta ah ka jira. markii uu weydiiyay, Daniel ayaa muujiyay xanaaq iyo xanuun, balse wax caddayn ah kama bixin. intii ay xog aruurinayeen caruurta Daniel iyo Crystal ayaa ugu dambeyntii yimid xarunta booliska, waxayna ahaayeen kuwa aan ogeyn waxa hooyadooda ku dhacay. Daniel ayaa loo sheegay imaatinka caruurtiisa, wuxuuna helay doorasho inuu isaga u sheego iyo in ay booliska u sheegaan. Danielna waxa uu doortay inuu isaga u sheego, isagoo u muujinayo naxariis uu la garab taagan yahay kadib dhacdadii dhacday. balse dhab ahaantii wuxuu ahaa fursad uu ku xakameynaya sheekada uu caruurta ugu muujinayo sida uu u doonayo xitaa xilliga murugada. markii baariyaashu la fariisteen qoyska Crystal, sheekadu waxay noqotay mid ka sii adag. waxay ogaadeen in kiiska uusan ahayn mid fudud oo ay tahay Anthony kaliya in la helo. markii ay la hadleen waalidka iyo walaalka, waxay ogaadeen xaqiiqooyin cusub oo qoyska iyo guurka Crystal ka turjumaya. waxaa intaasi sii dheer in ay ahayd markii ugu horeysay ee ay la hadasho qof qoyska ka tirsan, waxayna muujisay shakiga iyo walwalka ay ka qabteen ninka daba socday. laakiin Baare Martinez ayaa fahmay arrinta inay kasii murugo badan tahay marka la eego oo aysan ahayn kaliya dhacdo daba socod ah. waxay ahayd shabakad qorshaysan oo saameyn ku leh qoyska oo dhan. boolisku waxay la xiriireen gabar saaxiib u lahaan jiray Daniel oo Kerry lagu magacaabayay. iyadana sidoo kale waxay sharaxday in ay dhibaatadaasi kala kulantay Daniel oo ahaa hanjabaadyaha mar ay kala hareen asigoo isku dayay in uu soo celiyo xiriirkoodii. Baare Martinez ayaa helay xogtani, waxa ayna Daniel si rasmi ah ugu noqotay eedeysanaha ugu weyn isagoo oo la barbar dhigay Anthony. hadda Anthony iyo Daniel waxay noqdeen dad siman oo labadooda lagu eedeyn karay kiiska. markii ugu dambeysay Martinez waxa uu helay kaamirooyinka video guriga iyo shaqada Daniel, taasi oo u ogolaatay baariyaasha inay dib u dhisaan waxa dhacay subaxdii Crystal la dilay. ka hor 8 subaxnimo Crystal waxay gurigeeda ku noqotay kadib markii ay caruurta iskuulka geysay. wax walba waxay ahaayeen caadi. 8:15 daqiiqo subaxnimo nidaamka amniga oo dhan wuu damay. kaliya kaamiradaha garaashka ku yaala ayaa shaqaynayay 2 saacadood oo dhan. 8:25 daqiiqo kaamirada waxa ay doobtay Daniel isagoo guriga ka baxaya una socdo shaqada, isla markaasna sida ay dhaqaatiirtu rumaysan yihiin Crystal waa la dilay. fiidiyowga shaqada ayaa muujinaya Daniel isagoo u dhaqmaya si caadi ah 9 subaxnimo, salaamiya shaqaalaha sida wax walba ay caadi yihiin. kaamiradaha diriska ayaa muujinaya in qofna ku soo dhawaan guriga subaxdii. qodob kasta wuxuu Daniel ka dhigayaa shaki badan. baariyaashu markale waxay u yeereen Daniel asigoo u raacaya nidaamka oo qof caadi iska dhigaya, isagoo garanaya sida ay wax isku bedeli karaan. halkana waxaa ku burburay qorshihii Daniel sida dheer la soo qorsheynayay. Martinez oo ahaa baaraha kiiskan ayaa si toos ah ugu bilaabay wada hadalka, isagoo u muuqan mid ka baqaya inuu Daniel ka dhigo eedeysane halkii uu ku eegi lahaa dhacdooyinka dibadda. waxa uu ka hadlay xiriirka Daniel iyo Crystal u dhaxeeyay si uu Daniel u dareensiiyay inuu ku jiro jawi ammaan ah oo u furan yahay. Daniel waxa uu ka hadlay dhibaatada guurka iyo sidoo kale inuu dareemaynin wax qiimeyn ah. baariyaashu waxay ogaayeen in xanuunka iyo carada iyo guurka fashilmi ay yihiin sababaha suurtagal ah. markaas waxay Daniel tusiyeen caddaynta digitalka ee ugu dambeysay ee emailkii iyo fariimihii dabagalka waxay ka yimaadeen IP addresska shaqada Daniel uu ka shaqayn jiray. Danielna wuu naxay markaas, laakiin weli wuxuu iska caabinayay baariyaasha. Anthony waxaa la arkay asigoo jooga Ottawa subaxdii Crystal la dilay, sidaas daraadeed suurtagal ma ahayn inuu joogo Colorado shaqayn jiray. Danielna wuu naxay markaas, laakiin weli wuxuu iska caabinayay baariyaasha. Anthony waxaa la arkay asigoo jooga Ottawa subaxdii Crystal la dilay, sidaas daraadeed suurtagal ma ahayn inuu joogo Colorado. markii ugu dambeysay cadeymo dheeraad ah ayaa muujinaya in taleefanadii la isticmaalay si loo diro fariimaha Visa gift card lagu qoray magaca Daniel. xogta towerka telefoonka ayaa muujinaysa in taleefanadii la isticmaalay mar walba ay la socdeen telefoonka Daniel, waxaana laga helay Google searchka uu sameeyay Daniel habeenkii ka hor dilka. sidee ayaad qof madaxa u qaraaci kartaa si uu u miir beelmo? qodob kasta wuxuu muujinayaa in Daniel uu abuuray dhammaan sheekooyinka daba socodka ee been abuurka ee ka dhanka ah Anthony oo isku dayay inuu xakameeyo qorshaha Crystal. markii Crystal bilaabtay inay shaki gasho, Daniel ayaa si naxariis darro ah u dilay si uu u daboolo qorshihiisa. 16 December Daniel ayaa la soo saaray xabsi. waxaa la qabtay isagoo isku dayayo inuu tago carwada gabadhiisa.
waxaana la geeyay xabsiga isagoo aan iska caabinin. Toddobaadyadii xigta cadeymadii dijitaalka ayaa xaqiijiyay in Daniel uu keli ahaaday. waxaa la ogaaday inuu ka been abuurtay ex-boyfriendgii hore ee Crystal kaasoo uu ku qiyaamay caruurta booliska iyo weliba xaaskiisa. markii booliska maxkamaddu la gaaray April 17, 2025 maxkamadda ayaa Daniel ku heshay dembiga dilka darajada koowaad iyo weliba been abuursho waxaana lagu xukumay xabsi daa'im nolosha ha ku furata ah. intaas ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamijkeena maanta waad mahadsantihiin.